qodobka kan walaalayaal waa arrin aad iyo aad u qurux badan oo noo sugaysa ama noo xaqiijinaysa shay aad iyo aad u weyn wax badanaan ka faa'iidayno laga yaabo dad badan oo zamankeenna nool inaysan waxba ka garanayn ama aysan dareensanayn muhiimadda uu leeyahay waa qiso la yaab leh haweenay tukanaysa oo qolkeeda ay seexato ku tukanaysa salaad oo ilaahay caabudaysa laakiin waxyaalo ay in badan ka cabsan jirtay ayaa salaada intii ku jirtay dhinac kasta ka soo maray haweenaydan waxay ka cabsataa oo aan la tusin waa jiirka ama dooliga waxa loo yaqaan laakiin cabsidaa waxaa ka saartay salaada ilaahay markay ku jirtay tabaaraka wa tacaala salaadu shaki kuma jiro inay tahay shay aad iyo aad u weyn qofka insaanka ee bili-aadanka ah salaada hadduu ku tukado khushuuc acmaashiisa dhammaan waxay noqonayaan kuwo wanaagsan ilaahay raalli ahaanshihiisa ayuu gaaraya qofkaas haweenaydan qisadeeda aynu idiin soo gudbanayno walaalayaal waxay ahayd mid ka cabsata jiirta ama dooliga waxa loo yaqaan weliba cabsi aad iyo aad u daran ayay ka cabsan jirtay bal waxaa la dhihi karaa qof la mid a oo caalamka ku nool ma jiro markay timaado cabsida ay ka qabto jiirka ama dooliga haweenaydan in badan iyo muddo dheer ayaa mushkiladan haysatay cabsi aad u daran bay ka cabsan jirtay jiirka bahalka loo yaqaan ama dooliga waxay ahaan jirtay mar allaala markay jiirka aragto mid qaylisa oo cabsida awoodda ay leedahay ayaa halkaa gaarsiisa meeshay ku aragto jiirka ama dooliga way qaylin jirtay cabsi daraaddeed walow ha maraya meel ka fog haweenayda maalin maalmaha ka mid a haweenaydu waa weysaysatay salaad bay u weysaysatay waxay gashay qolkeedii say u tukato ayadoo salaaddii ku jirta ayaa guriga waxaa soo galay jiir hase yeeshe ayadu ooma jeedo kumana baraarugin ninkeedii baa arkay marka ninkeediina wuxuu go'aansaday inuusa hadlin suusa xaaskiisa u argagaxgelin oo muusa dhihin jiirka iska ilaali wuu ka aamusay suusa u naxdin gelin xaaskiisa baalkii jiirka ahaa marna dhinaca midig ayuu u dhaafaa haweenayda oo tukanaysa marna dhinaca bidix dhinacyadeeduu ordayaa haweenaydiina salaadda ayay ku jirtaa kumaysa baraarugin jiirka oo uma jeedo ama dhagba jalaqooma siinba ilaa ay salaadeedii dhammaysatay salaaddii markay dhammaysatay ayay geesaha fiirisay ama dhinacyada markaasay waxay aragtay jiirka ordaya way qaylisay sida caadada u ahayd cabsi daraaddeed ninkeedii baa la yaabay oo wuxuu ku yidhi maxaad la qaydinaysaa maxaa sidaan uga cabaadaysaa oo uga cabsanaysaa waayo wuxuu yidhi ninkii waxaan u malaynayay inaad jiirka markii horeba arkaysayba hadda maxaad oga cabaadaysaa dhinacyadaada ayuu ordaya jiirkuye markii horeba waad arkaysay maxaad hadda uga cabaadaysaa markaad salaada ka baxday waaban farxay oo waxaan maleeyey cabsidii iyo fuubiya aad ka qabtay jiirka inuu dhammaaday markaase waxay ku tiri maya markaan salaada geliyay jiirkan uma jeedin mana arkayn ee waxaa keliya aan ka fakarayey ee hortayda aan soo dhigay waxa weeye janno oo aan idhi midigta waxaa kaa xiga janno bidixdana waxaa kaa xigta naar mar allaala markaan akhrinta badiyo qur-aanka akhrintiisa salaada dhexdeeda aan badiyo waxaan dareemaa oo aan isdareensiiyaa inaan naartii kasii fogaanayo oo dhinaca jannada aan usii dhowaanayo marka jiir inaan fiiriyo ama adduunyo kale ku mashquulo ma awoodin aakhiraan ka fakarayaa inaan jannada ku guulaysta ayaan ka fakarayay naartana aan ka fogaado sidaasay haweenayda ugu jawaabtay ninkeedii qodobka keliya ee muhiimadda aynu ka leenahay qisadanna waxa weeye haweenaydan waxay ahayd mid khushuucsan salaadeeda dhexdeeda ilaa ay khushuucdu gaarsiisay inaysan shay kala fiirin xitaa shaygay ka cabsanaysay inaysan fiirin oo jiirkaas ah waxa keliya ay ka fakaraysay ee muhiimadda ay saartay waxa weeye inay salaadeeda khushuuc ku dhex muujiso kana fakarto maalinta qiyaama markii la keenayo ma jannadaa la gelinaya mase naartaa la gelinaya ilaahay hortiisa la xisaabin doono intaasay ka fakaraysa su-aasha keliya idin weydiinaya waxa weeye walaalayaal naftaydan aan ka bilaabayo haweenaydaas oo kale ma nahay mase xaaladeenna waa mid ka duwan xaaladda haweenaydaas midkeen salaada ayuu gelayaa markuu salaada xirto adduunyadu ku soofaya markaan salaada ku jirno wax kastoo agagaarkeenna ka socda waa la soconnaa bal adduunyadoo dhan baan la soconnaa masaajidkaan ku tukanaynaa ama gurigaan ku tukanayna saqafkiisaan fiirinaynaa mustaqbalkaan ka fakaraynaa berri maxaad qaban doontaa salaadna waa ku jirnaa hebel baa tegay hebel baa yimid ayaan ka fakaraynaa codkaasi waa hebel iyo heblaayaan ka fakaraynaa allah haddaan noqon lahayn haweenaydaas oo kale maxaa naga bi'i lahaa waa waxba soo gebagabayntu waxaa weeye walaalayaal aynu isku dayno inaynu muujinno salaada dhexdeeda khushuuc ha ku mashquulin waxaad ku ag tukanaysid ha ku mashquulin arrimo adduunyo waayo khushuucdaadu intay la eg tahay ayaa ajarka salaadaadu noqonaya ma jeceshahay haweenaydaas oo kale iyo mid kasii wanaagsan inaad noqotid ma doonaysaa salaadaada inaad ku khushuucdid khushuucda qaabka loo helo insha allah waa barnaamijaan soo gelin doonaa halka kan laakiin muhiimadda keliya aynu ku baraarujinaya waxa weeye xitaa dadkii hore ee wanaagsanaa ee salafu saalix mar allaala markay salaada galaan adduunyao dhan xagga iska dhigaan iyo mashquulkeeda mid baa tukanaya oo salaad xiranaya masaajidku ku tukanaya ayaa dhinac ka soo dudumaya ma isdareensiinayo
waayo ilaahay hortiisuu taagan yahay. mid baa waxaa lagu leeyahay lugta ha lagaa gooyo waayo cudurkaadu waa halis. wuxuu leeyahay ii kaadiya salaad baan xidhanayahay, markaan salaada xirto lugta gooye waayo ma dareemayo saa ilaahay hortiisaan taaganahay. waxay ahayd khushuucdu shayga ugu muhiimsan ay ka fakeraan, waayo qadarka acmaashaada wanaagsan halkaasi ku jirta. jazaakum allahu khayran, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.